lix caruur ah ayaa ku dhaawacmay degmada Reebad Khaatumo. Caruurta ayaa la sheegay inay ka dhaceen gaari iskurago ah oo xisbiga wadani u watay. Caruurta ayaa hadda lagu dabiibay xanaanada degmada Reebad Khaatumo. Maayirka degmada Reebad Khaatumo Maxamed Asad Dugad oo aan telefoonka kula xiriirnay ayaa ka warbixiyay sida ay caruurtu u dhaawacmeen. Hello, assalaamu calaykum. gudoomiyaha degmada Reebad Khaatumo Maxamed Asad Dugad aad baan ku salaamay gudoomiye. waa telefishinka badda cas arintii maanta ka dhacday degmada lixdii caruur ah ay ku dhaawacmay gaariga xisbiga wadani u shaqeynayay bal waxaad ka warantaa dhaawacooga iyo sidii caruurtaas ay wax u noqdeen. walaal faaka cabaaro tobankii ayaa waqtigaas soo gaaray baabuurtii soo dhaweyntii la socotay isaga ayaa waxaa ku dhaawacmay lix caruur ah oo dabadu u furantay dabeetana suuqa dhexdiisa dabeetana caruurtaasi madaxa dhulka ku dhufteen dabeetana qaar kale way dayoobeen qaar way dhaqdhaqaaqeen qaar inkastoo aanan aad loo wada hubin dhaawacyo culus baa soo gaaray marka anigoo markaa ka soo galay deegaanada duleedka ee magaalada oo aan kusoo duraynay dadkan kaararka ayaa kusoo gaaray magaalada ku buuqsan dabeeto waan qaaday dhaqtarkaan loo cararay xisbiga iyo baabuurtiisa wadada wada maraysay wax alaaliyo wax eeday iyo wax alaaliyo wax ama isbitaal ama gargaar ula cararay maanaan arag runtii raggii muxuu ahaaye abaabulka soo dhaweynta ka shaqeynayay weliba degmada u dhashay qaarkood bama sheegay laakiin cid alaaliyo cid ama isbitaalka noogu timaado ama gargaarkaba qaybaha ka geysatay maanaan arag. oo qoladii xisbiga ay ka shaqeynaysay diwaangelinta u qaabilsaneed degmada Reebad Khaatumo markii arintaas ay dhacday miyaanay ubadkii yaraa maani ku soo noqon. Allahi inta soo wareegtay qaar markaa wadada soo hayan ku istigay markaa ay u laarayay waan sheegay laakiin wax la haway ka dabayno markaa xanaanada wax dib noo jirtay haddii maxaan soo istaagi lahaayeen wax dib ma haafeen gaariga ma soo keenay toos loo diray caran. waa si fiican markaa waayahay caruurta maxaa saaray gaariga maadaama gaarigu ha gaari xisbiga u shaqeynaya oo degmada ka shaqeynayay maxaa caruurta saaray gaariga. suuqa caruurta waa caruur yar meeshuna mashquul baa talato gaariga iyagoo sida ayuu suuqa soo dhex mariyay mar alaaliyo meel ka fuulaan jecel alaaliyo saasay ida alaaliyo darada ma jirto. way gudoomiyaad baad u maasan tahay. dhaawacan caruurta ayaa ilaa hadda aanay ka hadal xisbiga wadani. xamse jaamaciyare telefishinka caalamiga badda cas 24 TV.